munaasibadan xadhiga lagaga jiray warshada Gamuur oo soo saari doonta taagiyada waaweyn ee biyaha ayaa munaasabadaasi waxa lagu qabtay duleedka magaalada Hargeysa waxaana ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici xubno kamid ah golaha wasiirada maareeyaha wakaalada biyaha afayeenka madaxtooyada mas'uuliyiin iyo madax kale oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale ganacsatada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo marti sharaf lagu casumay munaasabadaasi xadhiga lagaga jiray warshada Gamuur ee soo saari doonta taagiyada waaweyn ee biyaha goraalkaasi waxa ka hadlay mulkiilaha warshada Gamuur Xaaji Daahir Maxamed Gamuur waxaanu ka warramay warshadan soo saari doonta taangiyada waaweyn ee biyaha iyo sidoo kale waxyaabaha ku dhaliyay in uu ka sameeyo magaalada Hargeysa marka aynu warshadan guda galno muddo 9 sanadood ayaa daraasadeeda aanu wadnay sanadba sanadka ka dambaysa ayaanu eegaynay bal inay ka socon kartay in kale كمبنيدي aan ka soo iibsanay waxay yiraahdeen warshadani way ka weyn tahay Soomaaliland in laga sameeyo kuma haboona waxaan lacagta anaga ale halkaas aan dejinaynaa waxaan talo weydiinay oo su'aalan soo weydiinay wasiirka warshaduhu qayb uu ka qaatay in way warshadani halkan timaado waxa soo saarkeedu Soomaaliland uu ka weyn yahay waxay noqonaysaa in dalalka jaarka ay dhoof la dhoofiyo si harka rasiid loo helo oo dibadda ay lacag uga soo noqoto saddexda dal ee nala jaarka saddexdaba wayna gashaa waxa ku jirta shaqo abuur waxa loogu talagalay inay 150 qof ay ka shaqeeyaan geesta kalena xubno kamid ah golaha wasiirada Soomaaliland oo ugu horeeyay wasiirka wasaaradda warshadaha Mudane Shacayb Maxamed Muuse wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ee Soomaaliland Mudane Cumar Shacayb Maxamed wasiir dowlaha wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland afayeenka madaxtooyada Xuseen Aadan Ciige Deera iyo maareeyaha wakaalada biyaha Soomaaliland Mudane Cabdilaahi Maxamed Daarood oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxay ka warrameen doorka ay warshadani ka qaadan doonto kobcinta dhinaca dhaqaalaha iyo sidoo kale shaqo abuurka dhalinyarada geesta kalaalkaasi waxa ka hadlay ganacsato kala duwan oo markaasi ku amaanay mulkiilaha warshada soo saari doonta taangiyada ee Gamuur hanaanka wanaagsan ee u hirgeliyay warshadan madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa tilmaamay sida tan warshadan qiimaha badan ee walaalkeen Xaaji Daahir Gamuur isku soo kordhiyay dalka ilaahay ma mahadle marka labaad waxaanu hambalyeynaa ama hadlaqaynaa Xaaji Daahir oo maalgelin aad u qiimo badan dalka soo kordhiyay alaabo aad loogu baahnaa runtii oo warshadihii dibaddu sameeyeen inuu maanta halka ku dhex sameeyo waad dareemi kartaan qiimaha taangiyadaasi ama marka la soo transport garaynayo waxaa laga yaabaa iminka raw material-keeda in hal taangi uu soo qaado inta laga samaynayo 10 taangi laakiin marka dibadda laga keenayo waad garan kartaan intaas oo marka la soo saarayo oodka iyo waxay qaadan karayaan marka wuxuu ku dhiiray inuu maalkiisa geliyo si dalka iyada uu shaqo ugu abuuro oo alaabtii halkan lagu sameeyo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland waxa uu shahaadooyin guddoonsiyay mas'uuliyiintii kala duwan ee munaasabadaasi ka soo qayb galay halka uu sidoo kale gabagabadii uu soo kormeeray qaybaha kala duwan ee ay warshadani ka kooban tahay